kulanti wacan saaxiibayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay kooxda reer Sacuudi Al Nassr oo hadda ka taageero badan kooxo waaweyn oo qaaradda Yurub caanka ah garanka Ronaldo oo 48 saacadood lagu iibiyay 2 milyan oo garan xitaa kooxdan oo lacag adag ka sameysay Al Nassr waxay damacsan tahay in saddexdan xidig ee rooha saaxiibadii hore ee Real Madrid ay haddana ay dib u kulansiiso waa Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos iyo Luka Modric wararka suuqa ee soo baxaya Manchester United oo xiddi ka rabta Al Nassr min Enzo Fernandes, Fati, Dion iyo wararka kale soo baxay eegi doonaa muuqaalkeena inta bilaabin saaxiibayaal like Sara sina share gareysa saxaabadan ayu gaadho haday tahay markii ugu horeysay aan soo booqatana fadlan rukumo oo kambalaalkana furo saad noqoto qofkii ugu horeeyay daawada hadaynu ku bilowno saaxiibayaal kooxda Al Nassr ayaa hadda waxa ay ka taageero badan tahay kooxo waaweyn oo qaaradda Yurub caanka ah runtii Al Nassr ayaa hadda waxay gaadhay barteeda Instagram-ka 6 milyan oo taageero ah taasoo ka badan kooxo kamid ah kuwa ugu caansan qaaradda Yurub kooxahaasina waxaa kamid ah Sevilla, Valencia, Roma, Napoli, Aston Villa, Everton iyo waliba kooxo kale kooxahaasi waaweyn ayaa hadda ay ka taageero badan tahay runtii muddo maalin dhowna waxay taageerayaashii ay mariyeen 90,000 barteeda Instagram-ka imikana 6 milyan runtii saacadaha soo socda xitaa la ay dhaafi karaan waa laga yaabaa runtii kooxahaasi waaweyn ay hadda kooxda reer Sacuudi ay ka taageero badan tahay waana saameynta Cristiano Ronaldo saxiixaasi weyn ay sameysay kooxda Al Nassr walahi kooxo waaweyn ay isku qoomeen xidigaasi weyn uu dhaafo ee runtii saameyntaasi weyn leh weyn aragnaa taageerayaasha intaasi leeg ee kooxdan Al Nassr ku qulqulaya runtii kooxaasi waaweyn oo qaaradda Yurub caanka ah turto waa ka taageero badatay inimakana xitaa ay sii socdaan taageerayaashoodu waa laga yaabaa sida runtii laga soo xigtay wargeyska Okas ee Sacuudiga ka soo baxa runtii 48 saacadood gudahood ayaa waxa lagu iibiyay 2 milyan oo garan oo runtii ay ku xadhan yihiin magaca Cristiano Ronaldo 2 milyan oo garmaanta Ronaldo number 7ka ayaa la iibiyay 48 saacadood iyadoo runtii iibkaasi lagu qiyaasay 240 milyan oo riyaalka Sacuudiga ay runtii ka sameysay kooxdaasi waxaana u dhigantaa 63 milyan oo euro 63 milyan oo euro ayaa 48 saacadood runtii laga sameeyay garanka Ronaldo welina iibsashadiisu waa socota runtii haddii aan eegno lacagta eurona waxay ka noqonaysaa 63 milyan oo euro runtii lacag adag ay durtaba ka qabatay garanka Ronaldo kooxdani wayna aragnaa saameynta togan ee durtaba ku yeeshay taageerayaasha faraha badan leh ee ku soo qulqulaya wali aniga waxa ii muuqataba in horyaalka Sacuudiga oo imka la daawanayaba maalmo dhow aynu aragno sidoo kale kadib markii ay la soo wareegtay kooxdani Al Nassr Ronaldo Al Nassr ayaa waxay qorsheynaysaa inay soo qaadato labada xidig ee kala Sergio Ramos iyo Luka Modric say mar kale ay hal koox ay wada ciyaaraan saaxiibadii hore ee kooxda Real Madrid tan iyo waxa isugu dhameysay inay si toos ah saddexdan xidig soo garab ciyaaraan 2018 tan iyo 2018 waxay doonaysaa kooxda Al Nassr in saddexdan ciyaartoy ay iska garab ciyaarsiiso runtii Ronaldo saameyntiisa way aragnaa Ramos iyo Modric oo iyagu ku soo biirana saameyn kale inay ku yeelan karaan waa cadahay runtii markii hore waxa soo baxay in Sergio Ramos ay kooxdan xiisahay u muujisay xitaa la intaanay Ronaldo la saxan wararkaas waa jireen imika Luka Modric ay doonaysaa oo heshiiskiisa Real Madrid uu gabaabs yahay in markana horyaalka Sacuudiga kooxdan ay ka soo dejiso ee saddexdan xidig ee hore saaxiibada Real Madrid ahana ay mar kale ay soo garab ciyaari karaan tan iyo 2018 kooxda Manchester United ayaa waxay si amaaha ay ku doonaysaa xidiga Abubakar oo runtii jooga kooxda Al Nassr waxa xidiga la filayay in ay weerarka aan ku wada arki karno isagii Ronaldo oo iska garab ciyaaraya runtii ninkan waa xidigan caadi ahayn xidiga reer Morocco ee koobka adduunka runtii aan ku baranay xitaa la goolkii Morocco ay Brazil kulankii saddexaad ay ka badisay ninkii u dhalinay ayuu ahaa ninka waa la filayay in Ronaldo ka garab ciyaari karo laakiin Manchester United baa leeyahay idan waxay si ama ay ka rabtaa in laacibkan uu dhankeeda soo maro runtii Abubakar in heshiis ama ay ku soo wareegi karto Manchester United waa laga yaabaa sidoo kale Manchester United ayaa waxay wada hadalay kula jirtaa wakiilada goolhayaha reer Morocco Yassine Bono
runtii goolhayaan isaguna koobka adduunka xulkiisa Morocco ku wacdareeyay oo runtii xitaa la Manchester United imika ma haysto goolhaya labaad kadib markii goolhayaha Newcastle United ee markii hore amaahda ka soo saxatay Martin Dubravka oo heshiiskiisa uu kansalay oo kooxdiisa hore ee Newcastle United ku laabtay hadda goolhayaha kaliya ee Manchester United jooga waa De Gea goolhaya kala ma haystaan imikana wada hadalada waa furmeen Manchester United waxayna damacsan tahay in laacibka Resfilia ee Bono ay la soo saxan karto kooxda Manchester United wada hadaladuna haddaba waa socdaan waxaana imika soo badanaya oo soo taraya warka sheegaya Frank de Jong ayaa waxa la sheegay inuu bedelay fikirkiisa ahaa inuu sii joogo Barcelona waxaana uu Ten Hag uu sheegay waa sida warku sheegayaan in xagaaga dambe uu ku soo biiray United runtii maan dhawaan bedelkii lagu saaray ee uu ka xanaaqay xitaa lagu sheegay inuu garan waayay sababta loo bedelay iyo runtii qaabka loo dhaqmayo aynu aragno in Gaaf iyo Badri laga doorbidayo runtii Frank de Jong fikirkiisa waa bedelay waxaana uu rabaa Manchester United kooxdaasi xiiseynaysa inuu tago Ten Hagna waxa uu sheegay inuu xagaaga dambe inuu ku soo biiro United uu doonayo oo fikirkiisa hore ahaa in Barcelona uu joogo runtii ninkani uu bedelay sidoo kale Manchester City ayaa waxa leeyahay Barcelona waxay ka rabtaa xidigeeda dayarka Ansu Fati runtii Ansu Fati xitaa laimika kooxda Barca kuma qanacsan ciyaarsiis la'aanta uu ku haysto Tobrahan Shafi runtii kuma qanacsan ninkan Fati xitaa laftigiisa inuu tago waa doorbidaya runtii waa yaaban yahay dhaawac waa ka soo kabtay imika muddo sanad ku dhow ma dhaawacmin ninkani oo runtii dhaawac waa ka kabtay sababta kaydka loogu hayo ninkan maba garanayaba runtii waxa uu rabaa Barca laftigiisa inuu isaga tagi karo Manchester City ayaana kamid ah kooxda xiiseynaysa runtii Barcelona xidigan dayar ee Fati ayay ka rabtaa in dhankeedu soo mari karna aad ayaa loo badinayaa Manchester City laacibkana waa rabtaa Barcelona xidigan weerarkii ka rabtaa Real Madrid waxa jirtay in daafaca bidix ee Fernand Mendy ay ka rabtay runtii Manchester City Barcelona iyo Real Madrid waa weerar ay ku soo qaaday Chelsea ayaa waxay sii wadi doontaa leeyahay inay riixdo heshiiska Enzo Fernandes runtii Chelsea waxay rabtaa inay horumariso khadkeeda dhexe oo runtii sanadkan gaabis fara badan oo ka muuqdo ay runtii waxayna soo kala rabtaa laacibkan inay khadkeeda dhexe ay ku soo kordhiso waxayna doonaysaa imika wada hadalada ay kula jirto laacibkan inay sii horumariso si dhaqso leh in suuqa janayo uu dhankooda ugu soo mari karo inkastoo meesha laga saari karin oo Chelsea laftigeeda ay xusuusan tahay in lacag aan caadi ahayn laacibkan ay ku rabto Benfica ilaa 120 milyan ay ku rabto waxa ka yarna ma rabto in ay ku iibiso laacibkeeda sidoo kale xaaladda Kanti waa isbedeshay imika waxaana wali uu saxiixi karaa heshiis cusub kooxdiisa Chelsea inkastoo imika sheegan 50% ay tahay inuu tagi karo inuu joogi karaba labada dhinac bay tahay laakiin imika wada hadalada ay la yeelanayso kooxdan Chelsea xidigeeda khadka dhexe ee burburyaha N'Golo Kanti oo ay soo tariyaano in imika sii joogi karo wararkaasi ayaa maalmihii ugu dambeeyay isu soo taraya runtii inuu saxiixi karaa waa macquul Arsenal ayaa waxa xiiseynaysaa xidig ku fashilmay Liverpool runtii xidiga ay Liverpool ay suuqi dhawaa ay Juventus ay kala soo wareegtay halka sane amaahda xidiga reer Brazil Artur Melo ay Arsenal xiiseynaysaa waxayna doonaysaa Arsenal in xidigana khadkeeda dhexe ay ku adkayso runtii xidiga fara badan oo number 8 ayaa Arsenal u calaamadsan waxaana lagu soo waramayaa in Artur Melo uu yahay blankeeda labaad ama qorshaheeda labaad laakiin waxay ka horumarinaysaa Tielemans xidigan reer Leicester City haddii ay hesho Arsenal runtii Artur Melo waa ka lagu bixi doonta ama Artur Melo waa iska dhaaf laakiin haddii Tielemans ay Leicester City ay ka iibin weydo Arsenal Artur Melo ay la filayay in uu soo jeesan karto kooxdani Arsenal sidoo kale waxa leeyahay runtii Darwin Núñez qaab ciyaareedkiisa imika aad ka lagu dhaleecaynayo ee qaab ciyaareedkiisu waa xun yahay kooxda Liverpool ee difaacaysa waxay leeyihiin xilli ciyaareedkii koobaad ee Robert Lewandowski uu ka hoos ciyaaray Jurgen Klopp runtii iyo haddii la iskaga xilli ciyaareedkan koobaad uu Darwin Núñez uu ka hoos ciyaarayo Klopp runtii waxa leeyahay Darwin Núñez ayaa roon xoogay waliba iskuma dhawaa runtii 43 game waxay ciyaareedkii koobaad Lewandowski ka hoos ciyaaray Jurgen Klopp 43 game ayuu ciyaaray 9 gool ayuu dhaliyay halka 4 assist uu sameeyay hadda Darwin Núñez waa imika xilli ciyaareed la oran kale barkii xitaanay gaarin oo ka hoos ciyaaray muxuu ka sameeyay 22 kulan
ayuu Jurgen Klopp ku hoos ciyaaray xilli ciyaareedkiisa ilaa haatan ayuu maraya 21 kulan oo uu saftay 9 gool buu maraya 4 assist waa sameynaya in xilli ciyaareedkii koobaad ee Lewandowski ka hoos ciyaaray Klopp runtii 43 kulan intuu ku sameeyay ayuu 21 kulan ku sameynaya Darwin Núñez oo jamaahirta Liverpool difaacaya ninkan waxay leeyihiin weli waa roon yahay ninkani wax weyn waa qabsan karaa oo runtii wax weyn waa ka sameyn karaa kooxdan Liverpool ee markaa ha loogu samro runtii ninkani kubadaha inta fara badan ee uu luminayo oo ka faa'iideyn doona bil leeyihiin oo xil ciyaareedkiisa koobaad in la qabsado kalamaad uu wacdarayo ayaynu sugnaa bay taageen jamaahirtu oo kaasi waa difaacayaan saxiixda cusub runtiina ah ninka ugu qaalisanaa ee kooxdan Liverpool ay taariikhdeeda ay suuq ay kala soo wareegto wararkeena ciyaaruhu waa naga taas saaxiibayaal intaynu ku kulmi doono wararkeena kale wassalaamu calaykum